السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق محمد عبد الرحمن كنا سودوا هذا channel كا ما أنت فيديو قوم حربينا تشير كريستان وصحابتينا لو ذاك سو وحوقات channel كو وكرو أنا مرة واحد قدام بيو حسكو ديدونا إن وح كستيدي لو ذاك يعني وقت بدن صدق دق وحياة بدن أما شيء كوني بدن هذي لو ذاكو مرة فضلا ما أنتم حد قاعد سنة إن شير كريستان صحابتينا لو ذاك سأقول فضل ذو شير كرين كرتنا وادي قصنا سمية مرة شير كري وحوي معها فيديو قلنا لايك صار هداد ku cusubtay fadlan subscribe saar channelka meeshana oo saacsan ka subscribe qorantay ku dhufo deeto gambaleelka ma jilista ku soo baxana shido saay kugu yimaadaan fiidiyoyada marka saaw soo dhaw inuu noqoto qofka ugu horeeya daawada ay bilowna fiidiyoga ma sheekadeen waxay ku bilaabmaysaa gabadh loo oran jiray Elizabeth Fretzel waxay ku noolayd magaalada Amistad ee dalkaasi Austria waa maxay sheekadeedu maxay tahay qisadeedu imikaynu daawan doonaa qisadeeda iyo sheekadeeda la yaab kale ee soo maray gabadhaasi Elizabeth waxaynu dib u noqonaynaa ilaa 1984 halkaasoo lagu faafiyay magaalada Amistad oo ay deganeed gabadhan sawirada gabadha Elizabeth oo maxaa loo faafiyay gabadhan way luntay lamana garanay meesha martay qof garanaya ma og meesha gabadhaasi martay ama ay joogtana ma jirto nasiib darro waa la waayay gabadhaas haddaba waxay sanado socdaan iyo maalmuhuba dadku way iloowa bani aadam waa insaan way wada iloobeen laakiin hooyadeed oo aan iloobin maalin kasta buu ooy jirtay laakiin nasiib darro hooyadeed may ogeyn in gabadheedu la joogto guriga ay degan tahay gabadhani hooyadeed guriga ay la joogto waxa afduubtay aabaheed ayaa afduubtay waxaanu ku riday ama ay gabadhan ku afduubtay qolka hoose guriga ama meesha loo yaqaano basement balse wiro inaan la diiday intaas sanadood aanad ogeyn inay guriga kula joogto guriga kula joogtay cidna ma ogeyn walaalkeed hooyadeed guriga cidna kama shakin inantaas joogto haba yaraatee odaygana oday maskaxda ka waalan buu ahaa inantiisa intaas kale kagama tegin afduubashada uu afduubtay oo ku riday meesha hoose guriga kagama tegin maalin kasta uu ku xadgudbi jiray jinsi ahaan yacni uu kufsan jiray inantiisa jinsi ahaan maalin kasta waxaanu noqonnaa sanadku markuu ahaa 2008 bishii afraad 28 maalinkan oo argagax iyo la yaab ku sababay dalka Austria yani dalka Austria kaliya maaha caalamka oo dhan wuxuu ka hadlayay mowduucan waxa la ogaaday in gabadhaasi Fretzel caalamka oo dhan ayaa mowduucan isla dhexmaray iyadoo warbaahintu ay sheegayeen gabadhii yareed Elizabeth ee la waayay 1984 ayaa maanta la helay halkaas oo uu afduubtay aabaheed kana dhalay 7 caruura maalin kasta isagoo ku xadgudbay askartuna bartaas ayay ku xidhay ninkaasi Fretzel isagoo qirtay ama sheegay wax kasta uu sameeyay step by step yani tallaabo wax kasta uu sameeyay uu qirtay ninkani haddaba waxaanu noqonnaa 1984 oo markaas oo ahayd markii gabadha Elizabeth Fretzel la afduubtay sida Elizabeth inoo sheegayso waxay ahayd markaas 18 jir waxaana sheegtay inuu aabaheed ku xadgudbi jiray ilaa maalinka ahayd 12 jir waxay sheegtay in maalinka uu aabaheed soo afduubtay soo sumeeyay kuna soo dhexriday meeshaasi qolka madow iyadoo sheegtay markay indhaha kala qaaday inay isku dhex aragtay qol madow haddaba reerka gabadhaasi Elizabeth waxay u maleynayeen in gabadhaasi magaalkeeda gashay way markay 18 jir gaaraan gaaladu yani qof ma weydiiyo magaalkay galaan marka reerku waxay maleeyeen magaalkay galaan sidoo odaygan uu adkeeyay arintaas ama uu yani u rumeysiyay reerku inay gabadhan iska tagteen wuxuu soo qoray warqad ka timi gabadhaasi Elizabeth yani kama iman laakiin isaga soo qor waxaan dhan abuuray guriga hortiisa ayuu dhigay warqadan waxa ku qornay inuu magaalkan galay yani hay soo daydayna waayo haday soo daydayaan oo askartu ay raadiso akiid guriga ka dhaxelaysa marka waxaan ninkan iska ilaalinaya askartani guriga ka dhaxasho ma ogtahay gabadha ay reerkaasi Elizabeth ay koriyeen 4 kamid ah caruurtii ay dhashay gabadhaasi Elizabeth kuna dhashay meeshaasi basementiga sidoo koriyeen ninkan odayga ah ayaa soo kaxan jiray caruurta kadibna wuxuu hor keeni jiray ama go'aan jiray guriga dad waxay ka dhigi jireen in gabadhan Elizabeth ay yani caruurtan dhashay una soo dirtay reerka si ay u koriyaan waxaan ugu warkasta warqad soo raacan jiray waxaan ku soo qori jiray caruurtaydu waxaan filayaa inay idinka nolol fiican idinla noolaanayaan marka ilaaliya sidaas oo caruurtana reerka ku korsiyay yani ku khasbay inay koriyaan caruurtan saddex kale ayaa kula jiray meesha waxa ku haray meesha inan caruur ma oran karno yani waa mid 19 jir mid 18 jir iyo wali ilmo yar oo 5 jir ah ma oran karno ka caruur
haddaba 2018 bishii afraad 8 waxaa xanuunsatay inantii weyneed 19 jirka ah xanuunkaasna wuxuu ku sababi karay inay dhimato odaygaas Fredstall mar aabaheed ah isla markaana awowgeed ah ayaa ku khasbanaaday inuu ka xayeenatan dhakhtarkana geeyo dhakhaatiirtii markay arkeen inantan wax macluumaad lahayn waayo adduunka kuma nooleen yani qof 19 jir oo arag xataa cadceeda ay ahayd marka macluumaad markay ka waayeen inantan waxay ku khasbanaadeen in ay ka dalbadaan ninkii odaygii Fredstall inuu keenay inantan hooyadeed marka odaygana wuxuu ku khasbanay inuu soo saaro caruurtii iyo gabadhii dhashayba labadii caruur ku haday iyo waliba gabadhii Elizabeth Fredstall maalintan ahayd 2018 bishii Fredstall tankeedii waxay ahayd maalintii uu fashilmay fajidii iyo dhibtii uu ku hayay odaygaasi si kastaba ahaatee odaygaas maalintii ka dambeysay waa la xidhay waxaan ku tusay odaygan aynimadu barta uu ka gaadhay markuu soo saaray caruurtii intuu u tagay gabadhii caadiga ahaada yani uu qabay ayaa waxa uu sheegay inantii ay weyne 24 sano ka hor way soo noqotay waxaana go'aansatay inuu ku soo noqoto guriga eeda aynimada inta leegtay haddaba macquul baa inaanu qofna dareemin kana shakiyin inuu meeshan tahay basement yani basementiga miyaan la teginba ma intaas dhib male wala tigi jiray basementiga qof walbana wuxuu doonay ka soo qaadan jiray laakiin meesha gabadha ku xidhay ayaa albaab la yaab lahayd yani albaab lama moodin albaabku wuxuu ahaa uga dhigay isfench ama maxay bush buu uga dhigay deeto albaabka maba lahayn meel lagu furo wax lagu furo meel lagaga furo maba lahayn sidoo kale albaabku wuxuu ku furi jiray electronic ahaan ku furi jiray deeto wuxuu ka soo sokaysiyay kabadh ay ku dul saarnaayeen buugaag aad u fara badan marka qofna kama fikireen kama shakiinay bartan ku jirta reer dham yani reer dhan weeyaa meesha waxa ku jiray kama fikireen si kastaba ahaatee filim baan idin dhigayaa filimkaas oo laga soo qaatay qisada maanta marka idin ma sheegay filimku wuxuu ku saabsan marka soo daawadaysa filimka waxa la yiraahdaa Room xaqna idin soo dhigaya haddaba like share subscribe asxaabtiina ku faafiya xalqadan seen fiidiyo kale oo soo dhigno fara badan haddaan soo daawan fiidiyada hore bartana ka daawan doonta inta fiidiyo kale ku kulmano maca salaama